بسم الله الرحمن الرحيم. maanta ay bishu tahay 23 bisha October 2017 waxaan shirkan jaraa'id u qabtay anigoo ah wasiirka warfaafinta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dowladda gobolka Jubbaland Mudane Cabdinuur Cali Aadan. haddana waxaan fadhiyaa wasiirka wasaaradda beenta salki raadka aan lahayn ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimada iyo mas'uuliyadnimada iyo wax walba oo wanaag ah meel ka dhac ku ah qodadka xishoonayna aan ka suuro galin lagu faafiyay Facebook-yada ah in uu wasiirkii wasaaradda iscasilay aniga hadlaaya been abuurka laga sameeyay waxaan cadeynayaa wax sal iyo raad leh inayna ahayn. runtii waxay la mid tahay dadka maanta dadka laynaya masaakiinta waxba aan galabsan iyo kuwa been abuurka sameynaya waa isku mid marka runta loo hadlo waayo ma xishoodaan allihii qalqa kama baqaan beentii nabigeena subhanahu alayhi salaatu wasalaam uu yiri ninka been sheega ummadeyda ma aha ummadda nabiga maxamedna ma aha kaas hadisaan isleeyahay waayo nabigaas yiri ummadeyda ninka beenta sheega kamid ma aha. waxaan leeyahay warqadda xoogga intaa been abuurka intaa la eg wasaaradda gaadiidka timbara ahaa iyo xilligii wasaaradda gaadiidka 2 sano ka hor la kala qaaday. waxaan filayaa 2015 bishii May 15keedii wasaaradda gaadiidkana wasaarad gooniya laga dhigay wasaaradana doostii isgaarsiinta tiknoolajiyada noqotay. marka waxaasi waa waxaan waxba ka jirin waa wax la soo qaaday waa waxay kamid tahay waxa xasiloon xumada iyo dhibaatada iyo jahawareerka iyo maxaa la dhihi jiray xadgudubka xoogan ku haya dalka Soomaaliya kamid yihiin kuwa sameynaya waxa Ilaahay mahadi ah ninka ugu horeeyo soo galiyay iyo kooxda uu asaga ay yihiin iyo shakhsiyaadka ka dambeeya xilliga hadda aan hadlayo waa ognahay waana la soconaa waa shakhsiyaad ku caan baxay kuwii shalay dadka xasuuqay la sooba ku xasuuqay lahay Ilaahay buu ugu dhawaanayaa beenta sheegay kuwaas uu lamid yahay kama duwana haddii alla idmana ummadda Soomaaliyeedna waa iska ka qabanaysaa Ilaahaygi beenta xaramina uu ku qabanaya insha Allah haddii alla idmo. waxaan leenahay warkaas wax ka jira maahan waa jahawareer waa wanaag diid waa dowladnimo diid waa xadgudub shakhsiya midnimo iyo dowladnimo intaba waxyeelo ku ah waa xadgudub inta la eg. waxaan cadeynaynaa marka anigu ah wasiirkii wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dowladda gobolka Jubbaland hadda waxaan fadhiyaa xafiiskeyga shalan arrimo caafimaad ku maqnaa shalan imid galinkii dambe ayaan waxaan ka soo degay garoonka caalamiga ee dowladda gobolka Jubbaland magaalada Kismaayo. warkaan anigu Nairobi joogaan ku arkay shalay markaan arkay waan yaabnay. waxaan leeyahay ninka marka ugu horeeyo soo galay Facebook-giisa waan naqaanaa iyo qoysku yahay asaga ma naqaanaa hataa abwaan hebel abwaan ma tihid weli waxaa nasiib darro ah adiga oo salkaaga iyo raadkaaga la yaqaana insha Allah mana fakan doontid haddii ilaaha waxaan leeyahay beentaas ma ku fakan doontid ilaahayna waa kugu ciqaabaya insha Allah haddii alla idmo. annagana dowladnimada iyo inta wanaaga jecel ilaamaha amniga hay'adaha ammaankan waxaan ku amreynaa Jubbaland in ay arrinkaas shakhsiyaadka ku caan baxay kuwa faafiyey nin waa soo geliyey kuwa faafiyey ee haddana hal dhinac ka soo wada jeeda kuwa faafiyey ee haddana hal dhinac ka soo wada jeeda anagu waa naqaanaa anagu warfaafinaan joogaa shaqadayna waa war raadin nin kasta isleh maanta xumaan ka shaqeey waxaan u sheegaynaa war iska dhaaf haddaad dhaafi wayso wallahi aday aabba ku leedahay adduun iyo aakhirana ciqaabteeda waad arki doontaa haddii alla idmo. waa naqaanaa ninaa soo geliyey waa naqaanaa meeshuu joogo qoladoo xiriirka laleeyahay sababta uu soo geliyey iyo daraha uu ka leeyahay war dan ma aha waxaasoo kale war aday wax ku dhimaysaa
haddaad wax maqlaysid waxaan ku leenahay waxaas ka tanasul iska daa shakhsiyaadka ayagana weliba hal dhinac kasoo wada jeeda ee warka markay arkeen ayaga buunbuuniya meel walba geeyey ee meel walba geliyey saacad kastoo gelisa iyo shaksi kastoo geliyey iyo xilli kastoo geliyey iyo waxa uu yahayna waa ognahay waan diyaaranay waan haynaa waxaan u sheegaynaa laamaha ammaanka dowlad goboleedka Jubbaland oon faraynaa in arrinkaas markii caddayntii inta dhamaystiran way dhamaystiran tahay inta aan usoo bandhigna in ay la xisaabtamaan shakhsiyaadka ku caan baxay nabadgelyada dhibaato inay ku sameeyaan midnimada wax ku sameeyaan dowladnimada dhibaateeyaan wanaagga dhibaateeyaan horumarka dhibaateeyaan ee ummadda Soomaaliyeed isku diraan dadkii ku celiyaan waxyaabihii 92 iyo 92 iyo wixii xumaa Soomaaliya mar ilaahay cudur aafa ah sida daacuunka iyo kala aha oo ilaahay inuu gudbiyo raba inuu Soomaaliya ku celiyo ama dadka Soomaaliyeed ku celiyo kuma celin doontid kuma celinaysid ilaahay idinka ilaahay inuu ku qaban annaga oo iska ka qaban waxaan ka codsanaynaa laamaha ammaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo dhammaan mas'uulka ah maxay dalka Soomaaliya iyo wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka anaga aan hoos tagno oo dowlad goboleedyada wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka waxaan iyo wasiirkeeda waxaan leenahay dadkaas hadday Muqdisho joogaana waan idin soo gudbinaynaa ka wasaarad ahaan mas'uuliyadda idinka saaran laamaha ammaanka dowladda federaalkana waxaan leenahay mas'uuliyadda dalka Soomaaliya qalqal waxa gelinaya dhul mas'uuliyaddeeda mas'uuliyadda idinka saaran dowlad goboleedkana waxaan farayaa laamaha ammaanka in ay arrinkaas daba galaan shakhsiyaadka sameeyna haddii alla idma lala xisaabtamo